kulanti wacan dhammaantiinba waa barnaamijkeennii qubanaha VOA. barnaamijkeenan oo idinla socodsiinayaan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar waxaa qodobada aan idinku hayna kamida Somaliland oo qorsheynaysa in ay ku dhawaad 500 milyan oo dollar ku casriyeyso dekada Berbera laakiin kalluumaysatada ayaa ka cabsi qaba in qorshahan uu saameeyo. gabdhaha Kenya ee ka soo jeeda qoomiyadda Maasayda waa kuwa leh sababaha ay ugu dabaaldegaan gaarida xilliga dumarnimada. Clinton oo xidid ku leh gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka oo loo arko in uu muhiim u yahay cidda doonaysa inay ku guuleystaan doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA-da ee toddobaadkan. baarlamaanka Somaliland ayaa dhawaan ansixiyay qabiyo qoraalka qorshe lacag gaadhaysa 442 milyan oo dollar lagu gelinayo horumarinta casriyeynta iyo ballaadhinta dekada Berbera. ujeedada laga leeyahay ayaa ah in la helo dekad casri ah oo gacan ka geysata sare u qaadista dhaqaalaha Somaliland, laakiin kalluumaysatada deegaanka ayaa qorshahan ka walwalsan. wariyaha VOA-da Jason Patinkin ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray. bishii Agoosto baarlamaanka Somaliland ayaa ansixiyay heshiis qabyo ah oo uu maamul kula galay shirkadda DP World oo ah shirkad xarunteedu tahay dekada magaalada Dubai. heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan 442 milyan oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada Berbera, laakiin weli waxaa socda wada xaajoodka heshiiska. mashruucan oo haddii uu dhawoobo qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dekada Berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas. Berbera port is strategically located. dekada Berbera istaraatiiji ahaan waxaa halkan ay uga taalaa inay u shaqayso guud ahaan bariga Afrika, ma ahan oo kaliya Somaliland iyo Soomaaliya, laakiin waqtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Somaliland. marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dekada, taasina waxay suurto gelinaysaa oo kaliya maaha Somaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika. shaqaalaha dekada ayaa ku farxsan casriyeynta lagu sameyn doono furdada. maxamed saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqaynayay magaalada Berbera. faafacad buu ka soo baxay waxyaalo rajo leh uu naga soo baxay markaa qasbanta inay dekadii waxa noogu sameeyo dhinac marka taas rajo baan ka leenahay hadday imaan weyn hadday timaado waa rajadeeda waa hay. inkastoo ay jirto rajo aad u sarreysa, haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska. xitaa waxaa ku jira kuwii taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdulaahi Guuleed oo agaasimo ka ah urur taageera kalluumaysatada. waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo ka shaqaynaya furdada. haddii ay timaado dekada iyo dekada weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqaysa qalabka kombiyuutarada, taasi oo laga yaabo in ay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan. sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan. marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen, waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan. si kastaba ha ahaatee, xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekada Berbera. sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, in ka badan 200 milyan oo gabdho iyo dumar ah ayaa maanta la nool oo dhibanana u noqday gudniinka fircooniga. laakiinse koonfurta Kenya gabdhuhu waxay u dabaaldegayaan gaarista dumarnimadooda oo buuxda. wariyaha VOA-da Leni Ruvaga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. halkani waa deegaanka Oloitoktok, kauniga Kajiado ee koonfurta Kenya. maanta ilaa 400 oo gabdhood oo Maasai ah ayaa loo sameynayaa maalin gaar ah oo lagu muujinayo inay dumar buuxa noqdeen. waa caado lagu bedelayo gudniinkii fircooniga ahaa. maanta gabdhahan yaryar waxaa barakeenaya cuqaasha deegaanka.
habdhaqankan waxaa loo bixiyey alternative rite of passage ama ARB. aad baan u faraxsanahay maanta maxaa yeelay waxaan maray ARB sidii fircooniga la yiima gudin. habkaasi waxa uu keenaa dhiigbax iyo cudurro, gabdhuhuna way u dhiman karaan. habkani waa mid wanaagsan. waalidkeenna waxaanu u sheegnay waxyeelada gudniinka waanay joojiyeen. Kenya, gudniinka fircooniga waa sharci darro laakiin weli wuu socdaa. Lazerian Katawo oo 20 sano ka badan gabdhaha gudi jirtay waxay sheegtay inay guday tiro ku dhow 200 oo gabdhood. hadda waxay u doodaa ARB. casharo dumarnimada ku saabsan ayayna gabdhaha siisaa. qaar ka mida cuqaashu ma ogola habkan, iyagaana go'aanka gaadha. marka waa caqabad weyn. hase yeeshee tuuladu habkan cusub ayaanu qaadanay tacliinta iyo wacyigelinta darteed. hanaanka ARB waxa uu Kenya ka bilowday 7 sano ka hor. hase yeeshee ilaa 100,000 oo gabdhood ayaa sanad walba weli la gudaa. Nice Nylantai waxay danjire u tahay ururka caafimaadka ee Amrefi, waxayna ka tirsan tahay barnaamijka yaali ee madaxweyne Obama uu taageero. iyadoo qudheeda 8 sano jir ayay gudniinka ka badbaaday. gudniinka fircooniga ah, hore u guursiga ah, uurka da'yarida lagu yeesho iyo dhammaan caadooyinkaasi waxaan kaga gudbi karnaa waxbarashada. haddii aynaan tacliinta maalgelin weligood caadooyinkaasi ma dhammaanayaan. laakiin markii aanu garowno muhiimadda waxbaridda gabdhaha si lamida wiilasha, markaasun baanu horumar samayn karnaa. gabagabadii xafladda ayaa gabdhaha shahaadooyin lagu doonsiiyey, taas oo caddaynaysa in ay dumarnimo u gudbeen. gabdhaha sida Sabrina, hanaanka ARB waxa uu soo afjaray caado xun. waa tallaabo hore loo qaaday oo simaysa fursadaha gabdhaha iyo wiilasha si ay horumarka ugu sinaadaan. gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka waa gobol loo arko inuu muhiim u yahay cidda doonaysa inay ku guuleysato doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. Donald Trump ayaa si fudud uga guuleystay gobolkan murashaxiintii jamhuuriga ee la baratamayay, laakiin qoyska haweeneyda haatan ay ishayaan ee Hillary Clinton ayaa xidid ku leh magaalada Scranton, waxaana gobolkan uu codkiisa siinayay xisbiga dimuqraadiga tan iyo sanadkii 1992. wariyaha VOA-da Aru Bandi ayaa warbixintan inoo soo diray. Paul Scuber oo ah milkiilaha maqaayad ku taala magaalada Scranton ayaa dib u milicsanaya sanadii 1993 markaas uu la kulmay Hillary Clinton iyo saygeeda Bill Clinton. ma jirin qof ka wanaagsan. waxay ila muuqdeen dad qiimo badan oo runtii xushmad badan. xaqiiqdii waa dad wanaagsan. reer Clinton ayaa howlka maqaayadda Cuba ku qabsaday tacsida aabaha dhalay Hillary Clinton muddo imika laga jooga 23 sano. Hillary Clinton aabaheed Hugh Rodham wuxuu ku dhashay magaalada Scranton oo muddo fogba ay ku xooganaayeen taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga. laakiin maadaama ay dadka caddaanka ah ee dabaqada dhexe ee deegaankaasi waxoogaa ku soo dhawaanayaan Donald Trump, waxaa loo malaynayaa in musharaxa xisbiga jamhuuriga uu rabo inuu markaan waddo ka cariirsado. Christopher Porrig oo ah xeeldheere cilmiga siyaasadda ayaa sheegaya in arrintaasi ay adkaan doonto. waxaan u malaynayaa in weli ay tahay meel dimuqraadigu ku xoogan yahay, gaar ahaan marka aad ku darto dadka deegaanka ee la jira Hillary Clinton iyo qoyskeeda. waxaa jira xidhiidho waaweyn oo soo jireen ah taariikhiyan, marka waxaa laga yaabaa in Donald Trump ay ku adkaato xaajada. awowga dhalay Hillary Clinton ayaa halkan ka soo shaqeeyay gaar ahaan warshad soo saarta dharka. sanadihii 1800kii dhuxusha ayaa u bedeshay magaalada Scranton xarun caan ku ah warshadaha, laakiin hoos u dhac ayaa ku bilowday sanadihii 50-maadkii intii u dhaxaysay 80kii ilaa 2005. gobolka ayaa lumiyay ku dhawaad 30 shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. waxaan ku tusin karaa 10 warshadood oo ku yaala 10 kiilomitir gudahood hadda way tageen. waxaa ka shaqayn jiray warshada dharka, waxaan kaloo soo noqday darawal baabuurta xamuulka ah. wiil uu dhalay Mart ayaa hadda wax uu maamulaa maqaayad uu qoyska leeyahay. dhowaan maqaayadan ayaa ku soo baxday cadadka hore ee wargeysada Mareykanka kadib markii ay sameeyeen biisa ay u magac dareen marwo madaxweyne oo ay ku sharfayaan Hillary Clinton.
hadda gabadhiisa ayaa lagu casuumay inay la kulanto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hillary Clinton. imise gabdhood oo 12 jir ah oo aabahood biisa gada kana soo jeeda Denmark ayaa la kulmi kara qof sidaas muhiim u ah. waxaan ula jeedaa iyada waa naag cajiib ah oo caqli badan. marka haddii aad tahay gabar waxbaad noloshaad u qabsan kartaa. Marty ma doonayo in uu ka hadlo siyaasadda, laakiin fariin ayuu u hayaa siyaasiyiinta. waxaan u walwalsanahay dadka shaqeeya. waxaan nahay dadka Ameerika weyneeyey. ma ahan Trump, mana ahan Hillary. waa dadka. isaga iyo dadka kaleba waxay rajaynayaan in fariintaasi ay maqli doonaan musharaxiinta xilli ololaha doorashooyinka Mareykanka ay sii kololanayaan. gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka waxa uu caan ku yahay dhinaca dalxiiska. sidoo kale waxa uu xiliyadan dambe soo jiitay Soomaali badan oo u guuray gobolkaasi. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha uu gobolkani caanka ku yahay iyo nolosha Soomaalida ee magaalada Denver uu ku soo arkay mar uu booqday halkaasi. Oh, I'd love to be forgiven, but this life it ain't worth living if I have to sit worrying over you. goobtan oo ka baxsan magaalada Denver waxaa dadweynaha iyo dalxiisayaashaba madadaalinaya kooxo caan ku ah dhinaca heesaha. maaha kulankan oo keliya kuwa dhacaya, hase ahaatee magaalada Denver waxaa galab kasta oo axad ah dadweynaha ku nooli ay isugu yimaadaan beerta nasashada ee magaalada, iyaga oo wax wada cunaya, wada sheekaysanaya ama carruurtooda ciyaarsiinaya, halka ay barbar socdaan heeso kala duwan oo goobtan laga qaado. magaalada Denver oo caan ku ah buuraha dhaadheer haatan waxay soo jiidatay dadweyne tiro badan kuwaas oo magaaladan u soo guuray, waxaana dadkaas ka mida bulshada Soomaalida ah oo iyana 10kii sano ee ugu dambeeyay ku soo badanayay magaaladan. community-gan waxaa la aasaasay 1998 waxaana aasaaseen qaar hadda inta jooga iyo qaar naga tagayo magaalooyin kale u guureen. anigu waxaan imid community-ga aan ku soo biiray 2004 aan ku soo biiray. community waxay leedahay hal computer, xafiisna ma lahayn. haddana waad ujeedaa waxaan kusoo tusay dhowr xafiisyo kala duwan. heerkaas aan maraynaa, laakiin wax weyn oo hadda fandhina ma hayno. waa volunteer base aan nahay, hal mashruucaan haysanaa. jaaliyadda badidoodu dad yarna ganacsi waa leeyihiin. intayna kale dadka inta badiisana waxay wadaan tagsiilayaal. haddeera xoogaa waxaa la furay home care iyo la furay. arda badanna jaamacadahay dhammeeyeen. goobaha sida weyn ay u jecel yihiin dadka dalxiisayaasha ah waxaa ka mid ah xerada xayawaanka, taas oo laga helo badi xayawaanada ku nool dunida. goobtan ayaa xilliyada aad booqato aad ku arkaysaa arday iyo dalxiisayaal u yimi in ay xog badan ka helaan xayawaanada kala duwan iyo habnololeedkooda. intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeenii qubanaha VOA oo toddobaadkan ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. haddii aad doonaysid inaad fikir noo soo gudbiso ama aad barnaamijka la soo xiriirto noogu soo hagaaji emailadaada qubanaha@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.